بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولله قيمها بدن كسو دواد أرداقين. هدي بعد داوان يسمو غالكن وحا هباله إنا دوحي سقبتو تلابوين كن يمودوعين نكو سابسن قاب قرشات كسنة كعصو سي أضوها شو فكرة دور دميستران ونقاطو فايدة وحكوالة نلد ما يسمو غالكن إلا دماتك برنامج كنا وحا يدين سو قدبين إيسا أنيقو أهيان جامع نوح أيان دلد كسو دوادا qodobka koowaad nadiifinta weligaa ma isweydiisay sababta meheradaha shaqada gaar ahaan kuwa cuntadu ay u sii nadiifiyaan meheradahooda habeenkii marka ay shaqadu dhamaato ee ay ugu dhigan waayeen hawshaas maalinka kale maadaama ay habeenkii aad u daalan yihiin waa laga yaabaa inaad istiraahdo ma wahayaan awood iyo tamar ay ku sii qabtaan shaqo kale ee maxay u dhibayaan naftooda haddii ay ka tagaan goobta shaqada iyagoo aan sii nadiifin waxa dhacaysa maalinka kale inay saameynayso tamartoodii iyo jawigoodiiba laakiin haddii ay sii hagaajiyaan meherada habeenkii waxay ku bilaabayaan maalinka kale firfircooni iyo xamaasad cusub haddaba sidaas la mid ah marka aad sanad cusub bilaabanayso waa inaad iska nadiifisaa wax badan oo ku saabsan sanadkii tagay haddiiba ay jiraan dad aad is haysaan ama aydan wada hadlin u tag xalliya khilaafkiina oo iscafiya haddii ay jiraan dad qaraabadiina ah oo aanad in muddo ah booqan u tag soo booqo hawlaha qabyada ka ah ee aad islahayd in badan dhamaystir iska dhameesoona gabagabee haddii uu jiro xiriir ka burburay welina culayskiisii iyo saameyntiisii ka muuqato iska ilow hana ku ekaado sanadkaa tagay dhammaan waa inaad qabyo tirtaa wax kasta oo qabyo ka ah muhiimaddu waa inaad nadiifiso waxyaabihii sanadkii hore sanadka cusubna aad ku bilaabato dardar cusub iyo xamaasad sare qodobka labaad ha u bilaabin si xooga waxa dhacda sanad kasta bilowgiisa qofku inuu ku fakaro inuu si xoog ah ku bilaabo isku dayo bilowga inuu waxyaabo badan qabto naftiisa kalifo ugu dambeyn niyad jabo jooji gabi ahaanba habdhaqankaas waxaynu ka soo baxnay sanad adag oo dhibaatooyin badan ka dhaceen dunida iyo nolosheenaba si tartiib ah u bilaabo sanadkan dhiga hadafyo sahlan halka aad ku fakari lahayd inaad hesho waxyaabo badan tusaale ahaan inaad yeelato lacag badan inaad iibsato gaari cusub guri cusub iyo waxyaabo kale oo la mid ah ku dadaal inaad naftaada wax ka bedesho toos xilligii aad toosi jirtay xilli ka horeeya maalin kasta badal dabeecadahaaga xunxun ee aad la qabsatay hagaaji xiriirka kala dhaxeeya bulshada xooji cibaadada iyo xiriirka rabbi ka takhaluus dhammaan sifooyinka negatifka ah muhiimaddu waa inaad noqoto bini'aadam ka wanaagsan sidoo ahaa sanadkii hore waxa laga yaabaa inaad qodobkan u aragto sidii tallaabo hoos u dhigaysa hamigaaga laakiin xaqiiqadu waxay tahay marka aad naftaada wax ka bedesho ayuunbaad heli kartaa wax kasta oo aad rabto inaad hesho qodobka saddexaad qaybi sanadka dadka badankoodu waxay niyadda gashtaan inay haystaan 12 bilood kuwaasoo ay wax kasta ku qaban karaan taasina waxay keentaa inay isdhigtaan iyagoo aaminsan inay waqti badan haystaan ugu dambeynna waxay arkaan sanadkii oo dhammaaday iyagoo aan waxba u qabsoomin waa inaad sanadkaaga u qaybisaa dhowr meelood tusaale ahaan u qaybi 4 meelood 3 biloodba hadaf gaar ah dejiso taasi waxay meesha ka saaraysaa inaad aaminto inaad waqti badan haysato waxaanad hadafyadaada ku qabanaysaa waqtigii aad u qorshaysay faa'iidooyinka kale ee qaybintu leedahay waxa ka mid ah marka aad hawl gaar ah rabto inaad qabato 3 bilood kadibna ay 3 bilood ku dhaafto 3 bilood ee ku xigta ayaad ku dadaalaysaa inaad ku qabato hawshii qabyada ka ahayd laakiin marka aad dhigato hadaf 12 bilooda kadibna sanadkii dhamaado adigoo aan waxba qabanin waxa dhacaysa inaad murugooto kana qomamayso waqtiga ka lumay ugu dambeyn waa inaad niyadda gelisaa adigoon kaga iman culeysyadii 2020ka isla 2020ka sanadka cusubna inaan wax weyn ku qabsoomeyn haddii uu jiro qodob aad si gaar ah uga faa'iiday nagula wadaag qaybta commentiska aad baa u mahadsantihiin